barqa wanaagsan saaxiibayaal sida runtii meel kasta dunida ka joogtaan waqti waan ayaa idin rajaynaa dhammaantiina sida maad ka warqabtaan waxaa jira ciyaaro aad u fara badan ayaa jira idinkana waa ka warqabtaan marka shaxdan waxaan ka dhigi doonaa shax koowaad sidoo kale shax labaad ayaan soo diyaari doonaa oo diskeeda inuu badan yahay oo aad looga soo fiirsan doono laakiin shaxdan waa shaxda koowaad waa shaxda boqolkiiba boqol aad naftarkeeda ugu soo dadaalan xilli walba marka intaan shaxda ugu galin fadlan haddaad ku cusubtahay channelka subscribe saaro si aad ula socoto shaxa maalinlaha sidoo kale shaxda markay ku soo gaarto daawo inaad daawato wixii ka saacadaysa inaad meelaha qaar isleedahay wax ka bedelayo ku fiican wax ka bedesho intaas waa ku mahadsan tahay shaxda maanta waxaa ugu horeeya England Premier League Leicester City iyo Brighton half Albion ayaa wada ciyaaraya Brighton waa away Brighton iyo Leicesterna waxa Brighton kooxaha adag ay ku jirtaa oo run ahaantii la sii karo awood ay leedahay marka waxaan rabaa Brighton iyo Leicester markii la isbarbar dhigo ama comparison lagu sameeyo Leicester Brighton inaan dhaho Brighton badis kulankaani way badinaysaa Brighton ay galaysaa guud ahaan ciyaarta shaxda kulanka labaad waa Napoli iyo kooxdan kale Italy Serie A kaaga soo xulay Napoli iyo kooxda markii iyadana la isbarbar dhigo Napoli awood badan boqolkiiba boqol isku awood ma ahan marka Napoli kaaga soo xulay inay ka badi karto dhigeeda kulanka saddexaad wuxuu noqonaa Atletico Madrid iyo kooxdan kale Spanish Liga kaaga soo xulay marka labadan kooxood markii la isbarbar dhigo Atletico Madrid waxay ku jirtaa Spanish Liga kooxaha awood badan uguna maxaa ku yiraahdaa sheeg in uguna maxaa ku yiraahdaa difaacashada adag ay ku jirtaa marka sidaas awgeed Atletico Madrid kugu soo xulay inay ka badi karto kooxdan oo yar sidoo kale kulanka afraad wuxuu noqon karaa maxaa ku yiraahdaa PSV Eindhoven oo horyaalkeeda ka ah kooxaha ugu tunka weyn ay ku jirtaa marka PSV Eindhoven iyo kooxdan maxaa ku yiraahdaa Vitesse ku qoran tahay marka PSV Eindhoven waxaan ka qaadanaa won inay badi karto guud ahaan ciyaarta sidoo kale Santa Clara iyo kooxdan Benfica oo iyadana Portugal Premier League kaga jirta kooxda ugu awoodda badan horyaalkan ay ku jirta Benfica sidoo kale Benfica ayaa waxa ka qaadanaynaa inay badi karto guud ahaan ciyaarta ay ka badi karto maxaa dhigeeda Santa Clara kulanka shanaad ama lixaad aan dhihi karna waa Crystal Palace iyo Newcastle United Crystal Palace iyo Newcastle United markii labadan la isbarbar dhigo horta waxaa la saadaalinayaa in Newcastle United ay badi karto marka mar walba daadahana way badinaysaa hal mar ay lugta laaba kartaa sidaas awgeed marka waxaan kugu soo xulay Newcastle United inay Breja ama badis ay labadaba ay heli karto marka aan kaaga soo xulay ugu dambeyn waxaa ugu dambeeya Frankfurt iyo Schalke Frankfurt iyo Schalke waa German Bundesliga Frankfurt maaqan waxay la tahay Bundesliga ama German Bundesliga waxay kaga jirtaa kaalinta afraad miyam saddexaad asaas kaga jirta halka Schalke ay kaga jirto kaalinta ugu hooseysa horyaalkeeda ku jirta aan ogahay marka labadan waxa badinaysa waxaan ka soo xulanay macna Frankfurt iyo Schalke in Frankfurt ay badi doonto marka guud ahaan lixdaas maxaa ku tawaas kooxda maanta ku soo xulay shaxda kaleetana waa soo dhigi doonaa hadhowt insha Allah haduu alla idin aad baa loogu soo fikirto kooxo badan ay noqon doonaan iyo odds badan marka tan koodkeeda waa kana marka fadlan shaxanka ku soo gaartaan daawo aad baa u mahadsantihiin.